Cheif Caaqil Rashiid Maxamed Jaanbiir oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo maanta qayb kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu markii ugu horeysay si adag uga hadlay muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay 7 xildhibaan oo uu sheegay in laga hor istaagay inay gudaha u galaan aqalka golaha guurtida. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. muddo kordhinta golaha guurtidu anu waxaan isla waa qodob dastuuri ah muddo kordhinta golaha guurtidu hadday intay ka dhigayaan anu waxaan isla waxay waajib ku leeyahay shaqadooda ahayd muddaday ka dhigeenna iyagay ku xidhnay insha Allah ta'ala de waqtigay ka dhigeen hadhow sidoo de u suurto galaysa farsamahan maan garan laakiin hadii la yiraahdo sideed u aragtaa muddo kordhin de waa shay iyagu lahaayeen oo taa waxaan u maleynayaa ma kordhin kartaan cid kuma oran karayso iyo idinku xaq uma leedin waa shay iyagu gaar u leeyihiin taasi marka muddo kordhintu waa wixii caadiga ahaa ee shaqadooda ahayd ay qaban jireen taasaan u arkaa laakiin su'aashan kale weydiisay ahayd xubnaha golaha guurtida golaha saaka laga hor joogsaday inay ka qayb galaan codaynta waa calaamadii dictatornimada waa calaamad khaldan waxaanay muujinaysaa inaan waxba la wada lahayn oo nin waliba halkuu joogo isagu uu leeyahay haddii bilayskii la hadla taliyihii baa ku xidhaya haddii guurtidii la hadla guddoomiyaha ku saaraya haddii daakhiligii la hadla wasiirka ku fuulaya marka nin waliba meeshu haysta hadduu idhaa cidima hadli karto aniga leh waa calaamadaha dictatorka nimankaasi xildhibaanay ahaayeen golaha guurtida ahaayeen ra'yi bay wateen ra'yi bay lahaayeen ra'yigoodii lagu ixtiraamo codka laga badiyo ayaa haydeen la yiraahdo golaha ma geli kartaan waa xaaran waana calaamadii dictatornimada sidaana Soomaaliland si ay ku soconayso maaha si Cheif Caaqil Maxamed Rashiid Jaanbiir ayaa waxa uu intaasi raaciyay in caqabado badani hortaagan yihiin in doorashadu ay dalka ka qabsoonto 2019 muddo kordhinta waxa waday oo jecleed xukuumadda iyada doonaysay 19ka inaan la dhaafin qofka koowaad doonayay ahay xisbiyadan mucaaridkuna way la rabeen oo way la doonayeen oo iyaguna 19ka inay dhacdo way rabeen laakiin anigu saddexdooda waxaan u arkaa si aan macquul ahayn sababtu waxa weeye 19ka March ilaa December 7 bilood baa u dhaxeeya diiwaangelintii baa hadhay xeerarkii la ansixiyaa hadhay waxa hadhay in diiwaangelintii dib loo furo doorashadii oo dhacaysa golaha waxaanu maqalay commission kuna yiraahdeen 10 bilood oo heshiiska iyo intaas baani ku jirin baan u baahanahay de sidee u suurta galaysaa 9 bilood imika waxaan soo shaqeynayeen sugayaan ma muddo kordhin kilomiin haddana sugnaa de sidee u suurta galaysaa marka khilaafka xisbiyadu haddaan la daweyn oo xariga la isu sii deyn oo aan miiska la isku iman de doorasho inay qabsoomayso ima muuqato Qaasin jaamaca telefishinka Sameeyeen magaalada Berbera.